maayirka degmada Taleex ee gobolka Xaysimo ugu magacaaban maamulka Puntland ayaa maanta si muhiim miisaan lagu soo dhaweeyay deegaanka degmada Tukaraq ee gobolka Sool waxaana halkaasi soo dhaweeyay saraakiisha ciidamada qaranka iyo waliba xubno ka tirsan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee deegaankaasi warayna waxa halka ka hadlay mas'uuliyiintii soo dhaweeyay haddii aad in badan joogtay halkaas oo aad maanta soo gaadhay wixii mashruuc akhbaarka iyo beentii la isku shubay ay noqotay wax dadku arkeen aad baan idinka mahad celinaynaa inaad Soomaaliland timaadana way ku soo dhaweynayna Soomaaliland ma aha meel kala leeyahay waa dalkaagii waa meeshaad u dhalatay waa meesha dhaqanka u lahayd marka waxaan ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha degmada Taleex Iimaan Cali Faarax waxaanu leenahay gudoomiye ku soo dhawow deegaankaagii waxa isaguna halka ka hadlay Iimaan Cali Faarax oo ahaa maayirkii Puntland ee ugu magacaabnaa deegaankaasi Taleex ee gobolka Xaysimo aad baan waxaan ugu faraxsanahay maanta mar labaad inaan horta deegaankaygii oo aan muddo fara badan aan ka maqnaa aan dib ugu soo laabto wixii kale wuu gudadegaya waxaan la hadlayaa shacabka reer Taleex baan la hadlayaa marka horeysa shacabka reer Taleex aan waxa gudoomiyaha maamulka Puntland aan waxa boqolkiiba boqol waan salaamaya waxaan maanta u shaacinayaa xilkii aan uga hayay Puntland iyo wixii aan uga doonay intiiba inaan ku soo guuldareysanay oo wixii ay xaq mudnaayeen ay lahaayeen aanu meesha ka soo weynay waxaan u sheegayaa inay iimaansadaan hadalkii caaqilkoodu ku hadlay ee ahaa war waxaynu wax ku leenahay Soomaaliland ana waxaan u shaacinayaa maanta xilkii inaan iska casilay waxaan leeyahay war waxeenii waxay jiraan galbeed bay inaga jiraan malaha waxaana keenay markhaati iyaga Puntland waxaan ka waayay hal daar oo aan isku sawiro oo ilaado Puntland baa samaysay iskuulka Puntland baa idin dhistay xafiiska Puntland baa idin dhistay in la waayay inta kadibna waxa loo soo galbiyay dhanka iyo xarunta gobolka Laascaanood oo kula kulmay maamulka gobolka Sool iyo degmada Laascaanood iyo mas'uuliyiin kala duwan oo heer gobol ah xarunta maamulka gobolka lagu sameeyay soo dhaweyn waxaana isaguna halkaasi ku sugnaa gudoomiyaha gobolka Xaysimo oo iyaguna halkaasi ku soo dhaweeyay kan sugnayd maanta inaanu runtii Ilaahay maadii soo dhaweyno Iimaan Cali Faarax oo runtii ahaa gudoomiyaha degmada Taleex ama maayirka Taleex ugu qornaa maamulka Puntland runtii Iimaan wax ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan leenahay ku soo dhawow dhulkaaga hooyo deegaankaagii waxaan leenahay ku soo dhawow dhulkii nabadgelyada runtii waxaad Iimaan ku soo timid maanta meel nabadgelya waxaad ka soo baxday fawdadii iyo dhibaatadii garashada Ilaahay ku siiyay in aad runtii deegaankaaga dhulkaaga ku noqoto ku soo dhaweynaynaa waxaad timi gobolkaagii waxaad u timid dadkaagii waxaad timid dalkaagii aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa waan kugu soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa kuwa badan oo ka dambeeyana inay iman doonaan insha Allah taala iyaguna oo garan doonaan danta meesha ay ku jirto dalka iyo dadkuba intii cid ka soo timaadana waan soo dhaweynaynaa وبرخد عمر أحمد رباعي أنت دولة جمهورية الصوماليلاند deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool